Biyuhu waxa ay muhiim u yihiin dhammaan nolosha, si gooni ahna aadanaha jirkiisu waxa uu ka samaysan yahay boqolkiiba 60 biyo. Ilmaha yari marka ay dhalanayaan waxa ay jirkoodu ka samaysan yahay boqolkiiba 78 ilaa iyo boqolkiiba 80 biyo, iyada oo markasta oo ay koraan uu xaddiga biyo ee jirkoodu uu ka samaysan yahay uu sii yaraanayo ilaa marka ay qof weyn noqdaan uu soo gaaro boqolkiiba 60. Maalin kasta waa in qofku uu qaataa xaddi ama in go'an oo biyo ah si uu u sii noolaado, balse xaddigaasi ayaa kala duwan iyada oo ay ku xiran tahay jinsiga, da'da iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay. Waxaana celcelis ahaan qofka ragga ah maalin kasta uu u baahan yahay inuu qaato ilaa iyo 3 litir oo biyo ah, halka qofka dumarkaana caadi ahaan ay maalintii u baahan tahay inay qaadato in ku siman 2 litir dhibic 2. Biyahaasi dhammaantood ma baahnid inaad u qaadatid qaab ah inaad cabtid, waxayse kugu soo geli karaan qaabab kale. Tusaale, waxa ay la socdaan oo ay qayb ka yihiin cuntada aan cunno maalin kasta. Marka uu qofku cabo biyaha, waxa ay tagayaan mindhicirada halkaasi oo laga nuugayo, kadibna waxaa lagu darayaa qulqulka dhiigga, halkaasi oo ay ka gaarayaan qaybaha kala duwan ee jirka, kana qabanayaan shaqooyinka muhiimka ah ee jirkeenu uga baahan yahay. Waxaana markii shaqooyinkaasi ay idlaadaan, kelyuhu ay noqdaan meesha lagu filtar galeeyo ee jirka biyaha inta uu u baahan yahay, ma ahane inta kaleeta laga sii daaya laguna dara kaadida. Biyuhu waxa ay jirkeenna ka qabtaan shaqooyin waxtar leh, kuwaasi oo aan halkan lagu soo koobi karin, balse sababaha ay tahay inaad u qaadato biyo kugu filan oo aan halkan uga hadli doono waxaa ka mid ah: biyuhu waxa ay muhiim u yihiin heerkulka jirkeenna iyo kontaroolkiisa. Marka aad qaadato xaddi kugu filan oo biyo ah, waxa ay wax weyn ka taraysaa heerka kulka jirkaaga. Tusaale, qofka markii uu qabto shaqo amaba uu joogo meel kulul, waxa uu jirkiisa sii daayaa biyo fara badan qaab dhidid ah. Ujeedada biyahaasi loo sii daynayo waa in hoos loo dhigo heerka kulka ee kor u kacay, jirkuna uu isqaboojiyo, balse halkaasi waxaa ku lumaya xaddi biyo ah. Waxa uuna qofku u baahan yahay inuu qaato xaddi kale oo biyo ah oo u dhigma intii uu dhididay, si uusan ugu dhicin waxa loo yaqaano dehydration ama biyo la'aan. Waa midda labaad ee biyuhu waxa ay jirkeenna ka caawiyaan qashin saarka, si gooni ahna kaadida iyo saxarada. Marka qofku uu qaato xaddi biyo ku filan, waxa ay kelyaha fursad fiican u helayaan saaridda qashinka jirkeenna ku jiro, kuwaasi oo aanan looga maarmaynin in la helo biyo fara badan sida creatinine-ka iyo ureada, kuwaasi oo jirkeenna uusan haysan karin kuna ah sun. Haddii aad u baahato tusaalena, waxaa simbali kugu filan marka aad qaadato biyo kugu filan, waxa aad kaadidaada ka dareemaysaa inay noqonayso mid badan, kalarkeeduna yahay mid cad. Balse marka jirkaagu uusan helin xaddi ku filan oo biyo ah, kaadidaadu waxa ay noqotaa mid midabkeedu uu yahay jaalle, isla mar ahaantaana aad u yar. Sidoo kale, biyaha oo aad ka qaadata xaddi kugu filan waxa ay kaa caawinayaan in aysan saxaradaadu noqonin mid adag, calooshana aysan ku fariisanin. Marka caadi ahaan qofku uu qaato cunto, inta loo baahan yahay ayaa laga nuugaa mindhicirada, waxaana loo gudbiyaa inta soo hartay mindhicirada waaweyn ee loo yaqaano colon-ka, halkaasi oo jirku uu ka nuuga biyaha ku haray. Haddiise jirkaagu uu biyo kugu filan haysto, saxaradaasi lagama sii nuugayo biyo kale, waxayna noqonaysaa mid jilicsan oo si sahla qofku ku soo dhaafta. Balse haddii jirkaagu uusan haysan xaddi biyo ku filan, waxaa biyo fara badan laga soo nuugayaa saxarada. Taasina waxa ay keenaysaa in qofka saxaradiisu ay noqoto mid adag, calooshana ay fariisato. Sidoo kale, biyaha waxa ay muhiim u yihiin maqaarka jirkeenna iyo quruxda. Qofka markii uu cabaayo biyo ku filan, maqaarkiisa waxa uu muuqdaa mid dabacsan oo jilicsan, balse markii biyaha ay kugu yar yihiin, maqaarkaagu wuxuu noqonayaa mid qallalan oo adag. Sidoo kale, biyuhu waxa ay waxtar u leeyihiin xubin kasta oo jirkeenna ka mid ah, sida maskaxda, indhaha iyo kala goysyada, kuwaasi oo ay ka qabtaan shaqooyin kala duwan oo aan looga maarmaynin.